haamaha cadalle wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa digniin u dirtay dadka deegaanka ee cadalle in aysan u dhowaan haamaha yaal xeebta degmada fuustooyinkan ayaa ah kuwa ay ku jiraan sun haraadiga nukliyarka iyo kiimikooyin kale oo halis ku ah nolosha deegaanka iyo noolaha haddaan dib ugu laabano taariikhda kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa dalalka reer galbeedku bilaabeen in ay sun ku soo daadiyaan biyaha Soomaaliya sanadkii 1972 waxaa la galay ahdigii London Convention waxa uu qeexayay ahdigan in badaha aan lagu daadin karin kiimikooyin iyo wax waliba oo halis ku ah noolaha maadaama shirkadaha reer galbeedku aysan badahooda ku daadin karin haraadiga suntu waxay u soo daabuli jireen wadamada ay ka jiraan xasilooni darrada iyo xasaradaha waxaana ka mid ahaa Soomaaliya sanadkii 1993 ayay ahayd markii wariyaha reer Talyaani ee Ilaria Albi iyo muuqaalduubaheedii Miran ee u soo kicitimeen Soomaaliya si ay baaris ugu sameeyaan shirkadaha reer galbeedka ah ee sunta ku soo daadiya xeebaha Soomaaliya waxayna heleen xog sheegaysa in sunta warshadaha Talyaaniga 30% ka mid ah lagu soo daadiyo badda Soomaaliya nasiib darrase ayaga oo ka soo laabtay Boosaaso ayaa Muqdisho lagu dilay iyada iyo sawirqaadaheedii la socdayba waxaana laga qaatay wixii ay wateen sanadkii 2012 ayay maafiyada Talyaanigu waxay sheegteen in ay dilka Ilaria ay iyagu ka dambeeyeen waxaana u soo adeegsaday shirkadihii sunta ku daadin jiray Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga Kyriaco Di Metta iyo ganacsade Ruush ah oo lagu magacaabo Oleg ayaa ka mid ahaa raggii ugu waaweynaa ee dhaqaalaha badan ka sameyn jiray sumeynta biyaha Soomaaliya bilowgii 1997 ayaa wargeyska Famiglia Cristiana waxa uu daabacay xog sheegaysa in shirkado laga leeyahay Talyaaniga Switzerland iyo Jarmalku ay xeebaha Soomaaliya ku daadiyaan 36 milyan oo tan oo haraadiga sunta ah iyaga oo ku soo qaatay lacag dhan 6.6 bilyan oo dollar 2004 markii ay duufaanadu ku dhufteen xeebaha Puntland ayaa waxaa lagu arkay haamo badan guddi ka socday UN Environment iyo OCHA ayaa si wadajir ah u soo saaray in haamahaasi ay yihiin sun iyo wasaq haraadiga warshadaha ah ergeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Ahmed Duwalad Abdalla ayaa isna waraysi uu siiyay 2008 Al Jazeera ku xaqiijiyay in baaris badan oo ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay ku ogaadeen in biyaha Soomaaliya ay ku jiraan fuustooyin iyo konteenarro badan oo sun ah taxanayaashaas oo dhan waxa ay caddeyn u yihiin dhibaatooyin aan la noolnahay ee nagu dhacay intii dawlad la'aanta aanu ahayn